بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركور waxaan salaamayaa xubnaha golaha wasiirada la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha strategic communication-ka iyo xiriirka dadweynaha mas'uuliyiinta kale ee xukuumadda iyo mubaarakan oo ah maxaan ku raahdaa professorka barnaamijkan leer garayn doona hadii la helo waxa kale oo runtii aad ugu mahadnaqayaa ka soo qaybgalayaasha matalaya hay'adaha kala duwan xukuumadda haday tahay wasaaradaha iyo haday tahay hay'adaha madaxa banaanba waxaan leeyahay muhiimadda uu leeyahay barnaamijkani si fiican baa loo taabtay oo mas'uuliyiintii iyo wasiiradiiba ay uga hadleen ujeedadeenu waxa weeyaan siyaasadaha madaxweynaha waxa saldhig u ahaa in isbedel la sameeyo isbedelkaas koow waxa ka ah in reform lagu sameeyo institutionska dawladda sida ay u shaqeeyaan qayb buu ka yahay markaa kani reformkii institutionska dawladda lagu sameeyay horumarka waxyaabaha laga cabiro waxa kamid ah cumuqa ama gundheerida ay institutionskaasi amaba dawladdu ay leeyihiin haddii institutionskeenu ay xoogeystaan oo institutions maxaan ku raahdaa sida ay u shaqeynayaan iyo procedureska ay leeyihiin iyo xeerarka u degan maxaan ku raahdaa ay yihiin qaar dhisan oo dhammaystiran oo lagu dhaqmo waxa weeyaan si fiican buu institutionkaasi u gudanayaa shaqadiisa iyo waxa uu doonayo inuu qabto inta badanna waxa laga yaabaa marka inaanay muhiim noqon qofka madaxa ka ah ee institutionka heerka ka ah laakiin ay muhiim noqoto dadka waaraya ee haraya inta badan institutionka joogaya marka warisgaarsiintu xilligan maanta ay nool lahay waa wax aad iyo aad u muhiim ah waxaan loo noolahay waqtigii warka information age baynu ku jiraa haddaynan post information age ba ku jirin marka runtii waxa aynu u baahannahay maanta waxyaabo fara badan oo dunida laga yaabo inuu amaba amniga khalkhal geliyo amaba dhibaatooyin waaweyn abuuro waxaa ka mid ah wararka qaldan amaba disinformationka in la sameeyo xukuumaddu siyaabaha markaa ay kula dagaalami karto wararka khaldan waxa weeyaan inay iyadu leedahay nidaam warisgaarsiineed oo isku xidhan oo maxaan ku raahdaa la garanayo inuu institution ka soo wada baxay xukuumaddu marna waxa weeyaan dee waa hal xukuumad haddana waxa ay ka tirsan ka tahay institutionno kala duwan oo isu yimi oo shaqooyinka ay qalabtaan iyo nature-kooduna kala duwan yihiin warka markaa ay cid gaadhsiinaysaa marna waa war institutionka u khaasa maxaan ku dhahdaa wasaaradda biyaha oo kale haddii ay biyo ballaadhin meel lagu sameeyey ka warramayso waxa weeyaan ama ceel biyood iyo arrimo biyo la xidhiidha ay ka warramayso waxaa laga yaabaa inay taasoo keliya ay taabanayso laakiin tiisay wasaaradda arrimaha gudaha oo kale arrin amniga ku saabsan haddii ay kala hadlayso dadweynaha kala hadlayso waxaa laga yaabaa inay kulligeen wada saameyso wasaaradaha oo dhanna for one way or another ay u saameyso marka kow waxa aynu ka faa'iidanaa wuxuu noqonayaa in fariinteenu ay noqoto fariin mida oo wada socota oo institution ka soo baxaysa oo institutionka markay ka soo baxaysana raadraac maxaan ku raahdaa leh in laga tegayo oo marka dambe la arkayo oo platformyada la abuuray maanta waxyaabaha laydinku tababari doono kamid ah dee raadraac bay haddii ilaahay yiraahdo noqonayaan sidoo kale wasiirada waxay siinayaan discipline inaanu wasiirku golka fuulin laakiin institution ka dambeeyo
qof kasta oo bini aadamana hadalkiisu wuxuu quruxaystaa marka institution maxaan ku rahdaa uu ka dambeeyo had iyo jeer golka fuulku waxa laga yaabaa inuu keeno mahma uu qofku aftahan yahay hadalka oo dhan og yahay kala dhigdhiga og yahay haddii aan diyaar garow ka dambeeya jirin goldolool u yeelanaya si uun baanu goldolool u yeelanaya waayo wasiirku markuu hadlayo wuxuu u baahan yahay wuxuu ka hadlayaa had iyo jeer inay xog noqoto xogtaasina dee soo diyaarin iyo soo baadhis bay u baahan tahay statistics bay u baahan tahay mawduuca waxa laga yiri bay u baahan tahay dawladdu hadday hore wuxuuga tiri inuu ogaado ayay u baahan tahay haddii mawduucu ka hadlaya mawduuc research iyo cilmi baaris laga sameeyay mawduucaas wixii laga qoray wixii laga yiri bay u baahan tahay marka xafiiskan waa xafiiskii inta u soo shiilayay ee u soo karkarinayay si wasiirkii ama hogaankii wasaaraddu ama hay'addu marka ay doonayaan inay mawduuca ay ka hadlaan ay iyagu cad bisil u cunaan marka runtii shaqadiinu de shaqo fudud ma aha waa shaqo run ahaantii aad iyo aad u culus oo muhiim ah waxa kale oo muhiim ah de qof waliba wasaaraddiisiibu ka tirsanaanaya oo wasaaraddiisiibu ahaanaya wasaaraddiisiibu u shaqeynaya xafiiskana wuxuu ina xiriirinayaa sidii wasaaraduhu ay markay arinta warisgaarsiinta tahay ay u wada shaqeyn lahaayeen oo u socon lahaayeen dadka mar war bay nuu sheegaynaa oo maxaan ku rahdaa wax cusub bay nuu sheegaynaa mar mushkilad dhacay baynu maamulaynaa oo waa crisis management maxaan ku rahdaa mar kale maxaan ku waxaynu ka fal celinaynaa dareeno jiro oo narrative ayaynu samaynaynaa oo aynu abuuraynaa mid walbana waxa laga yaabaa dabeecad gaar ah iyo si gaar ah inay yeelato oo ay u baahato marka waxyaabahaas oo dhan guidelines-kaynu raacinay sidaynu sameeynay sidaynu abuuraynay weeyaan nuxurka maanta aynu hadii la yiraahdo tababarkan ku qaadanayna waxa kale oo iyaduna muhiimada kale ee la xidhiidha astaamaha oo iyaduna run ahaantii muhiima oo qofku sida uu eeg yahay in maxaan ku rahdaa documentku markuu qofku isagoo halka yaala arko intaanu akhrin u garto cid ay ka soo baxday run ahaantii u garto loogooyinku isku mid yihiin qofba aanu loogada uu isagu doono aanu isticmaalin laakiin loogooyinka aynu isticmaalana ee wasaaraddu isticmaalayaan ay isku mid yihiin iyo dawladda oo dhami kalarada la isticmaalaya ay isku mid yihiin astaamaha kale ee u baahan iyagana la isticmaalaya ay iyaguna isku mid yihiin runtiina waxa runtii mahad gaar iskale Kamaal Axmed Cali la taliyaha madaxweynaha oo arintan barbilow ilaa dhamaad maxaan ku rahdaa fikradeedii iyo ka shaqeynteedaba wasaaradaha kale way caawiyeen wasiirka dastuurka iyo aniga iyo runtii wasaaradda warfaafinta wasiirkii intaanu tagin markii shaqadan ay bilowgeeda ahayd runtii shirarkii ugu horeeyay ay intaasiba ay qayb ka ahaayeen shaqadaasina hadii ay sidaasi ku bilaabantay waxaana inoogu xigi doona insha Allah in eray bixinta iyo af Soomaaliga aynu qorayno isaga laftiisa sidii aynu u midayn lahayn af Soomaaligu wuu haray luqadaha waa laga shaqeeyaa waa la horumariyaa erayada cusub ee soo kordha ama ha noqdaan tiknoolajiyada sida loo isticmaalayo waa la bahaleeyaa hab qoraalkeena iyo sidaynu qoraniyo waraaqaha iyo sidaynu qoraniyo farshaxamadaasna iyo erayada sidii aynu wax midaysan u heli lahayn erayada maamulka la xidhiidha oo aynu ka shaqeynaa inta badan iyaguna hadii la yiraahdo waxa laga yaabaa in stage-ka labaad ay noqdaan waxaan markaa idinku boorinayaa tababarkan serious u qaadataan shaqaalaha dawladda marka inta badan la tababarayo maxaan ku rahdaa waxa laga yaabaa waqtiga inaan aad loo ilaalinin laakiin waxaan idinku boorinayaa inaad waqtiga aad u ilaalisaan ogaataan face-kii xukuumadda ayaa hadii la yiraahdo noqonaysaan wixii xukuumadda ka soo baxayay ayaa karkarinaysaan marka hawshaas ha yareysanina hawl aad u culus baa leedin diray oo leedinku aaminay tababarka waa 2 maalmood oo dhameystiran marka inaydun tababarka hadii la yiraahdo
aynu sidiisa u qaadataan waqti badan gelisaan fikradihiina ku dartaan deetana wax fiican oo qurux badan shaqadii launch gareynteedii iyo nidaamkeedii aynu gudubno waanu inoo furan yahay waa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum.